بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. halkan waxaan rabnaa inaan uga hadalno dhibaatooyin ka dhashay roobabkii lixaadka lahaa ee ka da'ay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Galmudug. waxaa ka dhashay roobabkii sidaad ogtihiin wala wada maqlay inay daadad xoog leh soo rogmadeen meelo magaalooyin ka mid ah Galmudug na waxyeelo ay ka soo gaartay naf iyo maalba leh sida magaalada Bacadweyn oo runtii dhibaato ay ka dhalatay dad ku geeriyoodeen hanti badanna ku burburtay dhibaatadiina weli ay runtii saameyn weyn leedahay. sidoo kale magaalooyin badan oo roobab lixaad ka da'een ayaa jiro iyadana ay saameyn ku yeelatay walow aan waxyeeladu gaarsiisnayn sida magaalada Bacadweyn. waxaan saa darteed ugu baaqaynaa dadka reer Galmudug marka koowaad inay iyagu gurmadaan u kaalmeeyaan magaaladaas dadka walaalahooda ee waxyeeladu ka soo gaartay daadadkaas iyo roobabkii meesha ka da'ay. sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka inay gacan ka geystaan dhibaatadaas soo gaartay magaaladaas oo runtii aad iyo aad lixaad leh. waxaan u qabanay guddi degdeg ah si ku meel gaar ah guddigaas oo halka laga shaqay doono oo dhaqso u howlgeli doono hawshaas. guddigan waxaan leenahay hawsha Allah idinku garab galo magaaladii gaara deegaanada kale saameynta roobka ku yeesheen wacyigelin u sameeya iyo intii ay kartaanba in diyaargarow fiican la sameeyo. inta qasaaro inta kaliya kuma eka magaaladan hadda caasimadda Dhuusamareeb Galmudug waxaa sidoo kale ka da'ay roobab aad iyo aad runtii u saameyn yeeshay. dad baa waxaa ku dhacay biriq 4 qof baa ku dhimatay dhaawacna ka soo gaaray dad kale oo meeshaas goobta ku sugnaa oo waliba dhaawacoodu culus yahay. iyagana kuwii dhintana Ilaahay umsar iimaan ka siiyo heladoodii iyo qaraabadii kuwa dhaawac ka soo gaarin Allah caafiyo. sidoo kale waxaan leenahay dhammaan intii ku dhimatay intii ku hanti beeshayba بدل غير قبيل سمر إيمان الله سيو. سوق الواحد من دمان رجال Galmudug inaan uga digno oo aan adkayno oo baraarujino xanuun kan adduunka faraha baan ku haya coronavirus in aad iyo aad taxadar badan la sameeyo aad looga taxadaro dhammaan fariimaha caafimaadka loo hoggaansamo la tixgeliyo la dhowro. sidoo kale ciidamada iyo hay'adaha amniga san horeba u farnay inay adkeeyaan isu soo gudubka iyo isu tallaabida dowladda dariska nahay ee Itoobiya walaalaha dariska nahay. sidoo kale isu socodka kale oo laftiisu keeni kara ama saameyn yeelan kara taana waxaan rabnaa inaan diraano baraarujino adkayno runtii in aad iyo aad loo fajignaado la dhowro tilmaamaha iyo fariimaha caafimaadka. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. mar labaad guddigii baan leenahay howlgala inay degdeg u gaaraan deegaanka dhibaatada ka dhacday masiibada ka dhacday runtii dad badan dhibaato ku soo gaartay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.